wax allaala wixii xil muhiim ahaa Soomaaliya waxa weeye abgaalo idinka haystee aamusa waxba iskala qaybinina وعبودنا لسي قلماح يونسا لقدي شب اسكو لوقا وحينا ما انت وحوا إله بعدين برواقيه وحوا هنا قيلسان بما باهين با عبد الله بلوان وحا تاغيا مقدشو وقف قلماح يونس عيد مركه كيني كرتا ما جرتو عبد القادر بوسنا وحا مريسا واسنا تاغيا وحا سو مغعابي مداله هبرغدير ملكيلياشا دولة حسن شيخ محمود ابشر بغاري سو مغعابا كلها وحبا دهنينا أبشر بغاريا سو مغعابيو waxa way mahad salaada soo keenayo fiqiya keenayo sheekadaas ka baxa hadii mid daawuda loo magacaabay hadii mid galmaaxa loo magacaabay hadii waxbuuna la soo magacaabo waa isla abgaalkiile hal meel salaada u tukataan tareenka walba idinka ku haray idinkuna waxa tareenka u dhax fadhiseen oo ay sugeyseen duqa caasimada bal cid la siiyo maanta markii madaxweynuhu duqa caasimada saaxiibkiis ka dhigana idinkii dhamaa waxa weeye warafa qaadateen ميديا ماشا ساو سو ركتبه قلماح يونس waxa way waraf la taagan duqa caasimada ama leedihiin abargiira la sii ama leedihiin waxa way murusada la sii ama leedihiin xawaala la sii ama leedihiin digil murfla la sii ama leedihiin dira la sii ama leedihiin waxa way butlana la sii ama leedihiin waa may Soomaha muhiimadii Soomaaliya ay leedahay oo dhan idinka haysta Allah idinku anfaco Soomaali oo dhama qatan oo waxa weeye iska aamusan oo danahooda raacatay hadii suurtagal idinka ahayn in idinkuna waxa weeye barkiin oo danihiina raacdaan duqii caasimadana waa idinka waxa weeye madaxweynihiina waa idinka muhiimadii Soomaali ay leedahay waxa xilaha idinka haysta waxa weeye dawladdan idinka waxa dhanba idinka waa shib iska dhah magacaabisiha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyay ciidu kala tashtaa ma jirto Soomaali oo dhamayado la tashanay waxa weeye meelahooda iska joogan oo waxa weeye mataladoodii waxa la siiyay xataa dadka qaar waxa weeye xabsiga laga soo baxshay xabsiga dad loo doon hadaa diidaan Soomaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud Soomaali idinka celinaysa ma jirtay ordaha filadu jooga ugu daata waa ordaha filadu joogay wallahi cid idinka celinaysa aysan jirin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa wiilkiini madaala waa wiilkiini waxa weeye gobolka banaadirna idinka jooga fil Soomaaliyana idinka jooga waxa weeye Soomaalidii kale ayagoo qatan oo dawladnimada maantay waxa weeye xubin muhiim ah ka haysan xubnaha ay haystaan laga tala galin ay iska joogan danahooda iska haystaan koonfur galbeeddeedii iska joogtaa Puntlandteedii iska joogtaa waxa waaye istajiye idinkuna Soomaali qaarkeed mataladoodii Maryan maxaa rabtaa cunto ma karis maba karin oo maxaa dhacay maba la jeclee soo baxna geey sariirta halkii saac baadaadan cunug dhalin nin ragaba ma hayba maba ogid beena marwa fertility tago ciladii jirta aan soo xaliyaba marwa fertility center waa rumaynta riyadeena kuma garan marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeena afkaaga caana qabow lagu qabay ballanteenu waa inaan marwo sii marno soona marno inta xaafada cilada ka jirta ay ka xalismayso waxa weeye kuwii banaanka jooga inta la iska daaya xabsiyada loo doontay dad loo magacaabo xabsiyada loo doontay asaanta laga soo saaraa loo dhiibo ogtiin ilaa haddana waxa weeye wax waraf ay wataan ma leh danahooda raacdeen inay ayagu wax qabsadaan oo waxa weeye dad iska dhigaan go'aansadeen gobolka banaadir ninkii shanaad miya ama ninkii lixaad oo idinka loo magacaabaya ilaa haddana caasimada Soomaaliya jidadkeeda daa fiiriso waxa weeye wadooyinka fiiriso horumar kama jiro isdajiya Soomaali waa idinku qaadatay waa idin aamusan tahay joojiya hal isdajiyo Muqdisho waa goof galmaax Yunis Bukhari soo magacaabay madaxweynuhu ceeb iyo aad midna kuma laha waxa weeye xasan sheekh maxamuud waa noo dagaal waxa soo dhan yaan war idinka tagin inaan isdagaalin Soomaali oo dhama waxa weeye og inaan isleenin Soomaali oo dhama og hadaa diidaan ma aho madaxweyne xasan sheekh maxamuud Soomaali idinka celimayso shib iska dhaha Soomaali ayadoo qatan oo la qadiyay oo mataladoodii xitaa dadaan mudnayn loo dhiibay ay iska aamusan yihiin koonfur galbeed maxay la carooto la maqanta hooyada federaalka Puntland maxay la carooto la maqanta Soomaali oo dhan ayadoo mataladeedii waxa weeye xasan sheekh maxamuud saaxiibadiis oo siiyo u dhiibtay oo san cidna kala tashan ay iska aamusan yihiin qaraabo raale ahaada
raalli ahaada isdejiya waxaan in daawanayaa waa Soomaali weyn Soomaalina waxa weeye waa qatanta matalaadoodii cid kala tashatay ma jirto matalaadan yaa la qabiil hebel yaa ku haboon madaxweynuhu ma dhihin golaha wasiirada meeqa maalmood la sugay dadku waxay isdhaayeen waxa la keen rabaa wajiye cusub wasiiro waxa weeye cid walba laga tala galiyay maxaa la keenay ugu dambeyn madaxweynaha saaxiibadiis duqa caasimadana sidii loo sugay madaxweynuhu saaxiibkiisu siiyay madaal u hadiyay qaraabo marka waxaan idin leeyahay warafkan aan social media meeshii saa loo soo rogaba la taagantiin iska dhiga daawada baladugu aragtidaada commentiga nugula wadaag hadalhaynta maantay galmaax yoonisa meel walba social media la soo rogo waraf la taagan maxaa leedahay fariin u dir aragtidaadana commentiga nugula wadaag muuqaalkan si share garay oo lay garay si uu gaara shacab bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka